bisha December sanadka 2021 intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada wararka maanta aan idin hayno u diyaar garoow markaan isagii oo dhameystiran. dagaal muddo socday ayaa waxa uu dhaxmaray magaalada Beledweyne ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo AMISOM oo isku dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay markii kadib xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin halka loo yaqaano Bacada oo xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ah. wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah madaafiicdii la isku adeegsaday uu ku dhacay guri ay degan yihiin dad rayid ah, waxaana ku dhintay 3 caruur ah oo walaalo ah halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. laamaha amniga magaalada Beledweyne ayaa weli wax hadal ah ka soo saarin weerarkan iyo sidoo kale madaafiicda iyo xaaladda saakay ka taagan magaalada Beledweyne. dagaalka magaalada Beledweyne ayaa waxa ka horeeyay howlgalo shalay ciidamada isgarabsanaya ay ka sameeyeen gaar ahaan deegaanka Luuqjeelo oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin bar control oo ay lacag ka qaadaan gaadiidka gala magaalada Beledweyne. nisana waxa ay shaaciyeen in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay fuliyeen. ciidamada hubeysan ee duufaan ee nisa ayaa howlgal gaar ah oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxay ka fuliyeen meelo ka mid ah magaalada Muqdisho kaas oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. qoraal kooban oo ay hay'adda nisa ku baahisay barteeda Twitter-ka ayaa ku sheegtay in howlgalkan bartilmaameedkiisu ahaa 15 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab balse ay ciidamadu 12 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay nisa sheegtay in ay qalqal ku hayeen amniga magaalada Muqdisho. howlgalkan oo gaar ah ayaa lagu beegsanayay 15 sarkaal oo maafiyada IS u qaabilsanaa qalqalgelinta amniga caasimadda Muqdisho waxaana ku dhimatay 12 kamid ah argagixisada. waa waajib qaran ilaalinta amniga iyo sidoo kale badbaadada ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka nisa mashaacin dagaalka rasmiga ah ee howlgalkan lagu fuliyay iyo sidoo kale magacyada xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay sheegeen in howlgalka ay ku dileen. toddobaadkii la soo dhaafay ayay ciidamada hubeysan ee duufaan ee nisa waxay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda, waxaana dhowaan howlgal laga fuliyay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hilwaa oo lagu qabtay kaydkii qaraxyada lagu sameeyay ee Al-Shabaab. howlgallo lagu xaqiijinayo amnigana waxaa laga sameeyay deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabelle sida booliiska iyo militariga oo iskaashanaya ayaa howlgalkan waxa ay ka fuliyeen deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe si loo xaqiijiyo amniga guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. deegaanada laga sameeyay howlgalkan ayaa lagu soo qabqabtay rag lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuwaas oo isku dayay markay ay arkeen ciidanka dawladda in ay ka baxsadaan balse gacanta lagu soo dhigay. ugu dambeyntii baaritaano ay ku sameeyeen raggan ciidamada ayay waxa ay ku sheegeen in lagu waayay wax cadeemo ah, sidaa darteed si damaanad ahaan loogu sii wareejiyay odayaasha deegaanada howlgalka laga sameeyay. waxaan rabnay inaan idin soo xaqiijino waxa sheeganay inaad tahay makiina ley waxa lagu soo qabtay adoo cagafley oo cararaysa markii lagu soo qabanay sax waa la idin soo qabtay cagafley ma cararto sax waa laakiin uu macarir aan ku dhameeyo cagafley ma orado adoo ordaya lagu soo qabtay waa lagu soo qabtay meeshan lacagta ku jirto maxay ahayd يا لو ملي تضابق وأرديسين لا بقول تاورتين والأرديسين أساسا اللي كل ذول اللي ساقطين فير وحين نميين سدح ذي ويل عرري صباح سقي وأكون أنا هلا ساقطين سدح ذي ويل وحنا ذي سيرني أذنك وعربنا دمارة إذا كسيرني وصعدينا guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook iyo YouTube-ka ee Bell Radio anaga intaas daawaday waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii ilaa dhamaadka aad nala joogtay fadlan like saar boggeena shiina share garee muuqaalka si saaxiibadaadu u gaaro. mahadsanid daawade.